Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan baran doonaa sida perfect money lacagta looga tuuro. Sida perfect money lacagta loogu tuuro adoo perfect money lacagtada kugu jirta aad ugu tuurto qof kale. Sideen ugu tuureynaa waaye. Marka hore horta walaal horta akoonkaada waa kana aan ku tuso. Akooma kana jiro Ethereum iyo USD iyo waxyaalaha kale. Marka akoonkaada oo dollarka waa kana. Akoonkaada dollarka waa kaasa. Ani hadda waxay igu jirto $6.85. Meeshan ayaa ka arkaysaa lacagta kugu jirto oo USD gada. Hadda waxay igu jirto $6.85. Marka lacagta qof kale oo loo tuurayo sidee loogu tuurayaa? Qof kale maga u tuuraysid walaal waxaad taawanaysaa halkana u soconaysaa. Halkaas exchange taawanaysaa. Sidaas intaan adina halkana si taawanaysaa meeshan mujida oo payment ee qorantahay si taawanaysaa marka lacagta qof kale u diraysid waaya. Payment oo qorantahay kadibna meeshan numberka qofka uu ku soo diri ayaa meeshan bast ku leedahay. Numberka oo qofka uu koobi uu ku soo dhahay ayaa halkan waxaa ku leedahay basti waa ku soo koob gareynaysaa kadibna numberka qofkaas ku soo diri ayaa meeshan gelinaysaa. Waxaa leedahay basti mar walbana waa inaa inta taabataa waa inaa halkaas taabataa kadibna akoonkaada lacagta kugu jirto aad doorataa kadibna akoonkaada oo lacagta kugu jirto waa inaad doorataa kadibna oo gacanta sidaas dab ku siisaa kadibna aad dhahdaa meeshan lacagta aad diraysid haddaad diraysid $5 haddaad diraysid $10 lacag walba oo diraysid halkan ku qoraysaa. Hadda waxaan dirayaa $5 meesha ku raaya kadibna waxaan taabanayaa next. Waxaan taabanayaa next kadibna waxaan taabanayaa confirm payments ayaan taabanayaa confirm payments waa kaasa kadibna lacagta sidaas ayaan u diray payment successful. Lacagtaas hadda waan diray oo $5 ah. Marka haddii wixii ka dambeeyo lacagta sida perfect money oo loogu diro ha ku wareerin sidan ayaa loogu diraa. Waxaan u maleynayaa inay fahanteen. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.